فرحت بلا ريرين يعني إليهن هبلايا ويل بيكو عرته هبلايا قبر بيدشي مقعان وبحنا فاحفظ لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا وحور نكا شاعرك قبياغا انت هذا الدوية كنا شاه إلهي أمرك سحفظ ودينت إلهي جل وعلا وكوكو داقي حفظ وسيد إلهي دونا يؤسعو سمال انت دمانا يسوء الدوية أدوغا بحضا أدوغا فرحسن دادكونا عقت هذا إلا للميان اللي أويان شركة إيا خير كان أدون كان الله دقاي دارتا شركة لغا قادنا وحالكا دارتا خير كان لغا قادنا ينا وحالكا خير يا شركنا وحي كسو بحيا وبني آدم كجركيسا خيرك وحو كسو بحيا وقفك بني آدم كجركيسا شركنا أدقا أمبو كسو بحيا خيرك عربكا كسو بحيا كلمة الطيبة صدقة أبو النبي قولي كلمة وناكسن هداتكو هذا شوا الصدقات ويان هدات كلمة عياتكو هذا شنو الذنب ويان إيش هذا هداتكو في رسل مارك تاني آياتك كونيكا سيدا إلهي عركي يقولك وأبو رئاتكو كو أكتو إلهي كو حصوصتنا أجر أيال لقو قريا إيش هذا هدات معاصدة كو أكتنا ذنبي أيال لقو قريا قعنت هذا الغفق مسلم كاد وحقوق بطوط كو عاوسنا أجر يا حسنات بلغاغا قريا هدي قعنت هذا أمد أتكون لبتنا ذنبي بلغو قريا وأسلا قعنتي وما مرنا خير سمينيسا مرنا شر بي سمينيسا إسلا عرب كيبا مرنا قرآن أخرينيا مرنا أوهيسيا إسلا دكتيبا مرنا قرآن دقيسانيسا وحديث كدقيسانيسا مرنا هيسي اللغو يا عيبي دقيسانيسا إسلا علوشيبا مرنا حاران قليسا مرنا حلال بوعيا قليسا إسلا اللغتي أمبا مرنا مسكيت كوسو عنيسا مرنا حق السينما هي ماركتان فيديوغا هي معاصده u soconaysa makiinatu al-a'mal qofka bini aadanka jirkiisan aya a'maashu ka soo baxaysa sharkuna adigu ka soo baxaya khayrkuna adigu ka soo baxaya ilaahayna bini aadanka wuxuu kula tacaamulaya amalkoodu kula tacaamulaya mooyene bini aadanka waxay haystaan dibadda ka yaala ilaahay bini aadanka kula tacaamuli maayo lidalika nabigeenu alayhi salatu wassalaam isagoo makiinada dadku inay toosiyaan makiinadan ilaahayna siiyay makiinadan bilaash baa lagu siiyay bilaash indhaha lacag kama bixin dhagahana lacag kama bixin gacanta lacag kama bixin lugahana ku socota lacag kama bixin arabkana ku hadlaysa lacag kama bixin sankana arfiga ku sheegaya waxa qadmuuni wax udgoon ku kala sheegayna lacag kama bixin ilaahay ba kugu deeqay tabaaraka wa taala wallahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'a وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون أديكو ير أو وحبا أنا قرنين أيا إلهي علوش ويدا كاسو صاري مركاسا إلهي مغلكي يا أرقي قلبي جيب إلهي كوكو ديقي وحاسو النعمة محل قوسيي إنا الشاكر نغطان لك الربا وإلهي كل شكر ديد موياني إنا إلهي عاصد لك مربا عملك وناكسن هل كانوا كسو بحيا جركن عملك حنا إسلا جركن وبو كسو بحيا كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة ثم إلينا ترجعون بإلهي يري نفول بقيرده ويدمينيسا ويدمينيسا ماها ويدمينيسا موتك ومحي موتك وحويان وبريج وبوندو ويان ودحيس أدويدني آخردا هبل بعد انت هداد مقشد waxay ka dhigan tahay noloshii adduunyada ayaa ka dhamaatay dadna noloshii aakhirada qofka u bilaabantay noloshii adduunyada way dhamaataa inta ayna ka dhamaanin ba fursad lagu siiyay ee makiinadan maashinkan ilaahay ku siiyay ilaahay daacadiisa u isticmaal araga ilaahay ha ku caasin maqalka ilaahay ha ku caasin hadalka ilaahay ha ku caasin gacantaada ilaahay ha ku caasin calooshaada ilaahay ha ku caasin waqtigaaga ilaahay ha ku caasin dhaqaalahaaga ilaahay ha ku caasin cimrigaaga ilaahay ha ku caasin hadaa nicmada maanta adduunka dusheeda sida adigu aad doonto aad u isticmaasho waxa ka dambaysa fa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun ba ilaahay yiri fa rabbika ya muhammad rabbigaaga ayaa ku dhaartay ba ilaahay leeyahay lanas'alannahum ajma'in dhammaantood ba ilaahay leeyahay nicmadii diinta kuwaan siinana waan weydiinaynaa nicmadii caamada ahayd ee adduunyada ku tacalluqsanayd kuwii la siiyana waa la weydiin doonaa amma kanu ya'maluun waxay adduunka dusheeda ku amal falayeen soo qabteen waan weydiinaynaa ba ilaahay nicmada islaamka dadka muslimiintana nicmada ugu horeysay laga xisaabay buu nabigu waa salaada awwal ma yuhasab bihi al-'abd yawm al-qiyamah min 'amalihi as-salah amalka ugu horeeya adoonka maalinka qiyaamaha la xisaabi doono
وصلاة أبو نبي قولي هذا صلاة دو هجابتي وتوستو والليباني ونبت قلي هذا صلاة كحما تبو نبي قولي وهو قف قاس وخسارة أبو نبي قولي عليه الصلاة والسلام نعمة دا سوى نعمة الدين صلاة دا هو رسول قف الله ويدين دونا نعمة دا كلام مارك تاني مادقة أما نعمة دا خلقك يا أبورك نعمة الإيجاد نوحى الله ويدين دونا قفك هي نعمة الإمداد لبشي بالله ويدين بو نبي قولي ألم نصحح جسمك ونرويك من الماء البارد إلهي بأدونك كو أرندونا شكل كان هي صورة قروح دا بدن بشرك ميان أنكو كو ديقين دمير وان كاديكي كريني أي وان كاديكي كريني جير وان كاديكي كريني ضفر وان كاديكي كريني بشر بني آدم بان كاديكني صورة قروح دا بدن با إلهي كو أرندونا ميان أنكو كو أبورين بيها قبول إدعاب بيسان ميان أنكو كو ديقين با إلهي كو أرندونا مكينة بلاش لغو مسين حسابها كدن بيس وقفوهم إنهم مسؤولون باكدن بيس جوجيا ما أنتوا مالنتي لو يدين يبقى إلهي أرندونا هل لو يدين لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره هدوا أهل الجنة يحي يهدوا أهل النار يحي والنبي يقول يحي لقتي سبك قيامة نعود في ميسو إلى نعمتها لغو يديو لحسابه عمري سوحو كسور دميي علمي لهي بري وحو كغا عمل فلي dhalinyarnimadaadi waxaad ku gaboojisad ku baaliyeysay ee dhalinyarnimadaadi ay kugu dhaaftay dhaqaalihii halka uu ka soo galay halka aad ku bixisana waa lagu weydiin doonaa afarta su'aalood amrigi ilmigi maalki iyo maaragtaane quwadii afarta ila qofka la weydiyo la xisaabiyo banka qiyaamada buu nabigu leeyahay dhinacna loo dhaafin maayo ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم إلهي بالله ثم لتسألن يومئذ عن النعيم رسول كان عليه السلام أبو بكر الصديق رضي الله عنه أيا كصوبح قريس مالين ظهر أسقوا أوجاجونا مركز عمر لكل ما يا عمر ساعدنا هذيك أنا محاكو وضع مركز يا أبا بكر قاجان الله سعدا بودي قاجو غير كي وحن عنمية لن وأبو بكر يا عمر لبدو دي بإسراعي أيكم مقالة مدينة دحو ريقيا وحي أركي النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام مركز النبي كويري محاسا عدن إني وقت الظهيرة وياني مركز سيدة الجوع يا رسول الله قاجان بنانك وقصوا بحنين هذا غلدي ودحف النكري ويني إنك أنا ما أنت واحد دتكينو أي كوكف تمام نيو وقتك ما أنت الحين كسود الله مقايدين تقنا هل كان كسوق عشينا هل كان كسوعنا يهلب قيل ما شاء الله يهلب قيل يا عنا قيل إمام الأنبياء عليه الصلاة والسلام هي اللي بدي يصير صاحب أبي بكر يا عمر سد حدودي مقالة المدينة أي إسكاق صهر بحين وقت الظهيرة مرقاس النبي يقول يا أبو بكر يا عمر ساعدا وحل كل اللي محايني وضع مرقاس سيدنا الجوع يا رسول الله قاجا يا نوضا قاجو قاجدو عين ماها قاجدو ديبو سعود نمان ماها موضة يا قاجدو إني تهي ديبو دع والله ابو نبي يقول أنا قنا إيقا ما سو ساري نقل كيقا إلا وحي نكا نقا سو ساري موياني أرنك الله صوبح لين ما نقول الله صوبح يقول مجدك لفو مسعود وإسرائيل نس صحابي يوتجن نجي صحابي جيب النبي أبو بكر يا عمر مرتقى ذي وعنتيروا ما أنت أي عنان مركي هلين أي نبي كويري إنكو قاجونا يا دخل كاسوق شين كما بحن إلا إنكو علوش النبي حسن تيمو يعني لكن والله ما كل دار تيمو نبي يقولي نعمة ده هل كان ما أنت أتكو هالشين قيامها ولا نويدين دون أبو رسولك كيني وما لنكني ون الصحابي والنبي محمد أبو بكر يا عمر ومرتقى ذي كم يصير يا أرجع يربو قل أنت أبو نبي محمد وكل يحيى أبي بكر يا عمر والله النعمة دا سوال الدين دون أبو كوي كم يا ما أنت إلهي إنك إنه نعمة إلهي واسمه ويقني
dadku maanta inta ka maqan bay eegayaan nicmada intay haystaan ma eegaan nicmada diintana waa lana weydiin doonaa nicmadan maaragtaana iijaadka iyo nicmatul imdaadna labadaasba waa lana weydiin doonaa nicmada diinta waa lana weydiino waa amaano weeyaan diintu nicmatul iijaadi wal imdaadna waa lana weydiin doonaa ilaaha azza wa jalla basharka dhigay ku jirsiiyay waxaad haysatana ku siiyay maalin baa ilaahay adoomihiisa u sugi doonaa oo weydiin doonaa yawm alqiyaama marka ha ku mashquulin ashyaa waxan dibadda ka yaala ha ku mashquuline amalkaaga ku mashquul amalkaaga hagaaji waliba amalkaagu hadduu hagaago noloshaada adduunyada oo dhan baa ku hagaagi aakhiraduna way ku hagaagi hadduu laakiin amalkaagu baanaado noloshaada adduunyada lacag ma hagaajin karto dad baa qaar baa haysta nolosha in lacag lagu hagaajiyo say nolosha u hagaajiyaan baa lacag meel walba uga dhaceen wax walba u barteen nolosha lacag laguma hagaajiyo nolosha waxa lagu hagaajiyaa iimaankii amalka saalixa lagu hagaajiyaa nolosha waxa lagu hagaajiyaa xiriirka adiga ilaahay niga dhaxeeya lagu hagaajiyaa khutbatul jum'a markuu nabigeenu ka bilaabay masjid al-jum'a fi madinati al-munawwara al-fadi nabigeenu ku hadlo way qoran tahay waxa kamid ahayd erayadii nabigu saxaabada uu ku yiri adoonka hagaajiya isaga iyo ilaahay xiriirka ka dhaxeeya ilaahay wuxuu hagaajiyaa isaga iyo adoomaha xiriirka ka dhaxeeya imaam shaafici rahimahullah ayaa arkay nin meel fadhiyo aad u murugaysan markaasuu la fadhiisto wuxuu ku yiri murugtan ka muuqata waa maxay masiiba kugu dhacday markaasuu haa nin masiiba ku dhacday baana oo masiiba dadka kale aan ku dhicin oo tooda tuka weyn ma kugu dhacday markaasuu haa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun oo masiibada kugu dhacday maxay tahay buu ku yiri markaasuu yiri dadkii iyo aniga noqono waan kala baxnay dadkii oo cid aan la heshiisahay iyo cid ila heshiisa ma jirta buu yiri hooyaday waa dagaal baa naga dhaxdhacay aabahay waan isdirirnay reerkaygi waan kala tagnay qaraabadii waan kala tagnay jaar waan kala tagnay waa dadkii oo dhinaca iyo aniga oo dhinaca imaam shaafici rahimahullah markiiba uu gartay bifaraasatihi culimadu faraasay lahaayeen nuur al-iimaan iyo nuur al-basiir ay lahaayeen wuxuu arkay markiiba adoonkan isagii ilaahay xiriirka u dhaxeeya inuu go'an yahay ama uu yahay daciif markaas uu ku yiri su'aal ma ku weydiiyay buu ka yiri wuxuu 100 qof raali galintooda iyo mid kaliya raali galintiisa waa yama buu ka yiri markaas uu yiri mid kaliya 100 qof inaad mar kaliya raali galisa waxa ka fudud oo ka dhow hal qof inaad isaga raali galisa wuxuu yiri waliba midka kaliya hadduu raali isagu ka noqdo oo isaga raali galisid boqolka kale isaga ka raali galin markaasuu waa kee markaasuu waa Allah buu ka yiri Allah wuxuu halka numberkayga qaldanaa baad ii sheegtay wili Allah ka jazaaysiyo bas numberka ma saxaya xiriirka ilaahay inaka noo dhaxeeya haddaan adkaynoon hagaajisano xiriirka iyo makhluuqa xiriirka noo dhaxeeyana ilaahay isaga inoo hagaajinayo gurigaagaad ka baxaysaa waxaa tidhi bismillaah tawakkaltu cala allah walaa xawla walaa quwwata illa billah waa ducaa yaroo gaaban weeyaan oo ka soo baxaysa makiinatul camal carabkay ka soo baxaysaa albaabka markaad ka baxaysa aqalkaaga ayaa tidhi bismillaahi baan ku baxayaa tawakkaltu cala allah taladana ilaahay baan u dhiibtay laa xawla walaa quwwata illa billah xeelad aan maaragtaanay macaasidana kaga weecan kara anigu malihi iimana ahaanin daacadda ilaahayna quwad aan ku qabsan karo iima ahaanine macasiyadan ilaahay baa iga weecinaya daacaddan ilaahay baa ii dhib yaraynaya ducadaa baad akhrisatay ducadaas malag baa odhanaya hudiita waad hanuuntay waa kufiita wixii adduunyada muraad iyo xaajaad kaa yaalayna waa laguu qabto cid kale kuu qabatay waa wuqiita balaayo iyo shar iyo masiibo wixii adduunyada ka dhacayayna waa lagaa ilaaliyey watanaxaa canhu shaytaan shaydaanna uu kaa leexdaa meeluu kuu soo maray ma jirtee shaqo tag baa laga yidhahdaa waa ducadaa yare gaaban bismi illaahi tawakkaltu cala allaahi walaa xawla walaa quwwata illa billaah ducadaasaa la doonayaa dadka muslimku inay bartaan oo ubadka ay baraan oo dumarka ay baraan
إمام النووي رحمه الله كتاب الأذكار وحاو كقرو كجمعي من دلاشة قفك دلن دعاء لغو أخريو إلى إيل كلا دغاي دعاء لغو أخرني بكو سو قري أذكار النووي markii kitaabka sheekhu uu sanifay ee maktabada la dhigayna reer Dimashq way isku sheegeen kitaabka baa soo baxay kitaabul adkaar baa soo baxay waa kitaab ka waramaya maxay min dhalashada qofku markuu dhasho ducada lagu akhrinayo ilmaha yar ila qabriga la gelinayo ducada loo akhriyo ayuu kitaabka ku soo qoray sheekhu markii reer Dimashq ay isgaadhsiiyeen hada kitaabka abu sheekhu sanifay kii yiraahdo kitaabka lacagan ku iibsado ku gato ma haysta kii yiraahdo waxa lagu oran jiray bi'daara washtari al-adkar war daarta iibiyo kitaabul adkar iibso daarta iibi nago daarta maxaan u iibinaa dhoof qaxooti aqalkiibu iibiyay maqlo dalkiisiibu iibiyay ila ayna halku socda إلى بلاد الكفر بوسعدا دولكي لا دونيا إن لغا سو هجرودو أيو انتو دارتي سيب يو هجرونيا عيالكيسي إسلامتين أفكو كو قادن أفكا والله بحسنيا هذا ودا حقيدو ودا ودنا دا سان غين النبي يري مد باي يري حقيد دين عيالكو ودنا دا سان دوفين النبي يري او دالكيننا في افريكا نبد غليد لا اسكو ما هلين كربو والكابه نبض تالا نبض رمع ضمان ولي قاعدين دباتة كذا عايز ميا وضمان يا كم دا عايز أفريقيا بقول لما قرنا يوسف دو سنة سو سعتال بس بديل كرتا تعليم ملء دكتور ملء شغل مجرته نولل مجرته نبض قلي مجرته ها دول كاس نبض تالا دول كائن أوبتي سوق هذا دارته ويبينيا مسلمين تدتك واجي إيمانك عملك الصالحة يدعوينك النبي أي يقين سناينا وحي أورنجرين دارت إيبي كتاب الأذكار نيبسو دارت إيبي دعاء يا رجابنك يا قريقات بركات كبح إلهي كقول هني بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله دعاء نكيل هذا أبو النبي يقول لي أفر تاسع الله بشارين يا وادها نونتي وطريقي مستقيم كايات كل عضي وكفيتا مراد وحي الدويدة أتكلها هينا والله قو قبتو عيد باكو ضبو شيء ووقيتا شرعية بلاية مصيبة وحي الدويدة جرينا والله قال لي حيي شايدانا مالو كو صومر مجرتي الصعبة لليها قفقاس والدعاء داس دعاء دانا عرب كي كصوب حيسا مكينة العمل من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة أي إيضا ما نقاضي أبو النبي قولي عرب كيسا يا عورديسا إنه معصيه دنبك إلالين وجنة وقب اللن قاضا من تكفل لي ألا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة فقال ثوبان أنا يا رسول الله نبي محمد أصحابته قدح الله وحويري أي إيضا اللن قاضي وإي كفال قاضي إنه بني عادك وحبا ويديسا وأنا نقول جنة وقب اللن قاضا ثوبان بعد أنك أقول اللن قاضي بيودي إن بني آدم قعدت هوس دقن إن بني آدم كي قباحي وشيغن إن بني آدم سيدا أنت لا سارن أنا أقول بالله قاضي أبو كيري شرط بالله قال يا شرط حديث كورة محوها أي أيضا ما نقاضي عرب كيسي عورديسا إنه معصية يدن بك إلالين وأنا نكون جنة وبالله قاضي لماذا حداد حفظه جنة لغو بلان قاضي من تكفل لي أي كفال قاضي ابو نبي يقول يا هي إنه بني آدم كعنته هوس دقن وصدا أورن نقول جنة وبلان قاضي ثوبان بعد أنيقا ثوبان صحابي قاس مركو دادي سويناتي سوق مقالة مدينة سوق فرس كي سوى تيتو سوقلو جادل فرس كأولا دعيو أي سوق كقدع جري دحديسا ربما لقى يا بس جادل كاسي نين ماشى مرة إنه كقدع رغبديسا إنه دكتيسا كقدع ما أورنجرين الصوصي بل إنتو دادعو أيو قاعدتيسا كسوق قادن جري مرقاسا لقو أورنجري يا ثوبان صاحب رسول الله باته نين دأوين باته جادل كأكتيدا كدعي ما نترى إذا أنك نوديب
markaasuu odhan jiray nebi maxamed baa ballan la galay ballankii nebi aan la galay baan buuxinayaa buu odhan jiray laa tas'alanna bunaya aadama xaajatan wasal iladii abwaabuhu laa tuxjabu fallaahu yaqdabu in tarakta su'aalahu wa bunaya aadamu xiina yus'alu yaqdabu bani aadam baahidaada ha u sheegin baahidaada waxaad u sheegataa ilaaha albaabadiisu mar walba aan la xidhayn ee albaabadiisu ay furan yihiin kaa baahidaada u sheego haddaad baryada ilaahay aad daysidna ilaahay waa kuu cadhoonayaa bini aadanka haddaad barididna baryaday kugu nacayaan bini aadamku baahi badan iyo bugtaan badan ba la isku nacaa taasay leeyihiin bini aadan haddaad tirahdid keen oo ku nici ilaahay haddaad keen odhan weydid isna uu kuu cadhoon gacantan marka waxa laynoo siiyey inaan ilaahay hoos dhigano ilaahay barino maalik binu diinaar raximahullah habeenada ka mid uu ku manaamay manaan baa lagu yidhi kac masaajidka ku yaalla xaafadda waa madiinatu basra inan yaroo shaab baa jooga oo ilaahay ku caabudaya 3 maalmood yarkaasi cunto ma cunin aadoo raashin kariyo u gee baa lagu yidhi manaam uu kacay cuntadii buu soo diyaariyey maskiidkii u yimid wuxuu soo galay inan yaroo shaab oo ducaysanayo shabaabkeena iyo shabaabkaa isku eg cuntadii buu u dhigay uu la cunay markay isbarteen ay wada cunteeyeen buu ku yidhi aqalkaygu waxuu ku yaallaa xaafadda ka dambaysa ku yaallaa waddadaad saa u soo mar sidaa u soo mar mar allii markaad baahateed cunto u baahatay ii kaalay buu ka yidhi hadalkaa markuu yarkii yaraa maqlayba wejigiisii buu bedelay wuxuu yidhi maad i taqaanay horay may maan ku aqaanay maya xalay adigoo hurda ka amarka kugu siiyey inaad kacdo cunto aad ii soo karisood ii keento kaa baryadiisa intoon daa'iman adiga ku imaadaa buu ka yidhi idaa sa'alta fas'al illaah kaasaan baryi buu yidhi meel kale lama baryo albaabka makhluuqa waan iska xidhay buu yidhi anigu albaabka khaaliqaan garaacaa bas xidhiidhka ilaahay innaka inaga dhexeeya hadduu inoo hagaago nolosha adduunyada inoo hagaagi xidhiidhka inaga dhexeeya innaka ilaahay maxaan ku hagaajinaynaa jidhkeennan camalka wanaagsan waa inuu ka soo baxaa salaaddii waa camal wanaagsan soonkii waa camal wanaagsan qur-aankii waa camal wanaagsan sadaqadii waa camal wanaagsan fadhiga miskiidku waa camal wanaagsan dikrigu waa camal wanaagsan tacliinta diinta la baran waa camal wanaagsan diinta ummadda loogu yeedhaa waa camal wanaagsan baa la rabaa in laga shaqeeyo salaaddii subax ayuu nebigeennu ka baxay calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisii buu nebigu sidaa u eegay wuxuu yidhi kiinee baa saaka waagu u baryey isagoo sooman abibakar baa yidhi aniga kiinee baa saaka waagu u baryey isagoo qof bukana soo buuqday abubakar baa yidhi aniga kiinee baa saaka waagu u baryey isagoo janaasaya aasna ka soo qayb galay abubakar baa yidhi aniga kiinee baa saaka waagu u baryey isagoo maaragtaanay qof xanuunsanaya soo ziyaartay abubakar baa yidhi aniga markaa buu nebigu yidhi khisaalkaa aan soo sheegay nin uma kulantaa hadday u kulantana ninkaas waa ahljanna buu rasuulku yidhi qabla salaat alfajr ayuu abibakr sidiiq isagoo sooman waagu u baryey isagoo sooman aasna ka soo qayb galay qof bukana soo ziyaartay miskiinna soo quudiye wax soo siiyey daarulcamal bay joogeen ay garteen inay daarulcamal inay joogaan bay garteen daarulcamal baan joognaa daaruljazaa halkan maaha daarta laynagu abaalmarinaya adduunyadan maaha adduunyadani waa daartii camalkuna waxau ka soo baxaya waa jidhka maashiinka camalka samaynaya waa jidhkaagan jidhkan ayaa la doonayaa ilaahay in lagu raalligeliyo xubnaha bas haddaan xubnaheennaas ilaahay ku caabudno ku adeecno adduunyadan sidaan doonnaa ilaahay noo yeeli galabtaan sheegaaye kitaabka imaam ibnuljawsi raximahullah uu leeyahay sifatu safwa dasa cajiibuu ku sheegay cabdulwaaxid binu zayd nin la odhan jiray nin saalixoo caabidoo reer maka ayuu ahaa habeenada ka mida siduu u ducaysanayo u alla baryayey ayuu ilaahayow wuxuu yidhi ilaahayow gabdhaha muuminaadka eed aniga maaragtaan adduunyada aad aakhirada jannada iigu tala gashay hadday adduunka joogaan ilaahu itus buu yidhi
uu seexday markuu ducaystay buu iska seexday manaan baa lagu yidhi gabadha maymuunata sawdaa laydhaa ee ciraaq ku nool ee magaalada kuufa ku nool ee miiga kuufa ku nool ayaa ka mida gabdhaha muuminaadka jannada lagugu guurin doono makuu ka dhaqaaqay ciraaq buu tegey magaaladii kuufuu yimiday dadkiibuu waraystay markaasaa loo sheegoo layidhi wartaasi waa tu macduurada oo dadka ma soo dhex gasho magaalada dibaddeeda xoola ku dhaqataa waa iyada waxaan rabay ii tilmaama halkaa maroo u tag baa lagu yidhi wuxuu u yimiday iyadoo adhi badan dhex joogta adhigaygii iyo waraabuhuna isla daaqayaan isla cunayaan markaasay jubbad suufa ayay markaa huwan tahay salaad bay tukataa 800 maan u malayn kitaabka inaan ka arkay subaxdoo kaliya 800 oo rakacay tukataa way ka baxdaa way tukataa way xidhataa way tukataa markaa bay dareentay qof bini aadana inuu meesha soo dhawaado ariga soo dhex galay salaadii bay khafiifisay kolka salaadii ka baxday ayay ku tiri ibn ziyad ibn zayd bay ku tiri ballankeenu halkan maahayna waa aakhire iska socod bay ku tiri والله يابي مقعيسين وين شيكتي مرادك وصعدنا وين شيكتي أريجينا وياجاي ورابيه با اسكدح صعده ولا عبيه ولا ضاقيه ولا جوجا وحول إن الزيدين أنا حي ونرجع وصعد أياك وشيجي وعيت الحديث النبي جماد اللودي إن الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف حديث النبي محمد ويري أرواح ذا بني آدمكو وأسكر إلهي واسكو حرم ويان عالم الأرواح بان وذا جوغيني لبدي الروحي هلك سرى اسكو تقاني أدونكنا واسقرنا واسقرنا واسفهمي حدي هلك اسكو صوت ديدينا أدويدنا واسديدي أرواح ذنا استقاني السلامة بكتري بلنكينونا وآخره سؤال كلامك ويدي بكتري السؤال هذا كان السؤال قابي أريقاقا ورابو كاعوني مايا محاد كو أخرى ديبوري بليشيك وعيتني هلا يابن أنيقو إله خالقا ربكي حريركي نقد حيبان أتكيستون هقا جستي لبدا حريركي كد حيان إلهي بهقا جيتي إنكم أنت الدين مرك الله هذا القاعدة وحنوها يسنى دين تما فعديد ويني آخرة وانت الله بس waddanka Yaman bari annagoo joogno ijtimaac ka qayb galayna ayaa gaadhi lan cruiser aan hormaray xagga dambe waxa ku qornaa ad-dunya bil mal wal aakhiratu bil a'mal adduunyada lacag baa ku haysa aakhiradana a'maal baa ku haysa may hadalkaasi waa hadalka cilmaaniyiinta weeyaan adduunyadu inay ku hagaagto hadaa dooni aakhiradu inay ku hagaagto hadaa dooni labada daarood inay ku hagaagaan hadaa dooni waxa ku haya amalka wanaagsan baa ku haya adiga iyo ilaahay xiriirka niga dhaxayo hagaaji bas waa tamaanta bini aadanka caalamku ay garan laayeen oo cilmigan fahmi la dhahay man habba an yubsada lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimahu bi rasuulku yiri nika jecel in arsaaqada loo waasiciyo cimrigiisana loo dheereeyo qaraabadiisa xiriiriyo bi rasuulku yiri رزق إلا إنه واسعية ما دونينه بل نك الرزق إلا واسعية دوني وقعنت تال لكن حقيقة دون عيب كأنه مالك له رحم كاجا حديدي أباها هو يدا أديركا أبتجا هبر يرتا إددا المادر ردا ولا لها قوة دلين حديدي لعقدتك لكم حديديو لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن وسعوهم ببسط الوجه وحسن الخلق بالنبي يقول dadka lacag laguma deeqa buu nabigu lacag dadka lacag kuma wada gaari kartaa dadka lacag kuma wada raali galin kartaa laakiin dadka waxaad ku deeqdaan buu rasuulku leeyahay wajiga furan iyo dabeecadda wanaagsan wajiga furan iyo dabeecadda wanaagsan dadka lacag laguma wada deeqi karo خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيت المال كيف لعقتي هل كان نقطي ما حكى يلا دتك او قيبيه بود لعقتها والله قيبيه وهدنا way hadhay jumca walba markii laga baxo salaada jumcada la yarta
iyo dadka masaakiinta iyo ducafada lacagta wada siiya buu yidhi cumar. cabdiraxmaan bin cawf hadloo yidhi yaa amiira almu'miniin baytalmaalka wixii lacag ku jiray haddaad tidhaahdo wada bixiya ilaahay nooma keena balaaye hadday balaaye berri timaaddo maxaan gaashaan ka dhigannaa oo iskaga difaacnaa buu ka yidhi. markaasuu yidhi cabdiraxmaanow carabkaagaa shayddaan baa ku hadlayay buu yidhi maanta. laqananii allaahu xujatahaa wa waqaanii sharahaa buu ka yidhi. hadalkaa aad tidhi xujadiisa ilaahay baa ii laqinay, balaayada soo socotana sharkeega ilaahay baa iga badbaadiye oo naga badbaadiye. balaayada iyo masiibada imanaysa waxaan u diyaarsaday maad garan buu yidhi aan u diyaarsannay. maya, nebi maxamed wuxuu u diyaarsaday baan u diyaarsannay buu yidhi. waa maxay? ilaahay taacaddiisa iyo taacadda nebiga haddaan haysanno balaaya nagu dhici mayso, balaaya noo iman maysa buu ka yidhi. waman yattaqi allaaha yajcal lahu makhraja wayarzuqhu min xaysu laa yaxtasib. sayidina cumar faaruq aayaddaasuu akhriyey. aayaddaasaan akhrisanaynaa oon haysannaa. haddaan ilaahay xadhiggiisa haysanno oon iimaan iyo taqwad kaamila aan leenahay, cidhiidhi kastoo nagu yimaada meelaan ka baxnaa ilaahay noo yeelayaa, arsaaqadana meelaan ka filin baa ilaahay naga siinaya. silaturaxim, raximkoo la xidhiidhiyo arsaaqadda way siyaadinaysaa. istikfaartuna arsaaqadda way siyaadinaysaa. faqultu istakfiruu rabbakum innahu kaana ghafaara yursil الsamaa'a calaykum midraara wayumdidkum biamwaalin wabaniin wayajcal lakum jannaatin wayajcal lakum anhaara. istikfaarta haddii lala yimaado arsaaqadda ilaahay waasicinaya. taqwadii baa arsaaqadda siyaadinaysa. taqwadii tawakul haddii ilaahay la tala saartana low annakum tatawakkaluuna cala allahi xaqa tawakulihi larazaqakum kama yarzuqu الطayr taqduu khimaasan wataruuxu bitaanan buu nebigu yidhi. haddaad ilaahay talada u dhiibanaysaan tala saarashadii ilaahay xaqa uu lahaa in loo tala saarto sida shimbiraha u quudiya ilaahay nii quudin lahaa buu rasuulku yidhi. shimbirtu subaxdii waxay ka baxaysaa gurigeyga iyadoo caloosheedu ay madhan tahay, waxay soo noqotaa iyadoo caloosheedu ay buuxdo. dukaan kama shaqayso, beerna ma falato, xoola ma dhaqato. yaa arsaaq, ilaahay baa arsaaqa. tawakul. acmaashaasi haddii jidhkeenna ay ka soo fusho bay culimmadu leeyihiin nolosheenna adduunyada markaa waxay noo noqonaysaa janno ku sug. maanta muslimiintu markaad eegta noloshay ku jiraan janno ku jiri maayaana cadaab baa ku jirnaa maanta. muslimiintu adduunyada dusheeda dadka cabsanaya maanta waa muslim, dadka qaxaya waa muslimiin, dadka lalaynaya waa muslimiin, dadka islaynaya isdilaya waa muslimiin, dadka la caawinaya waa muslimiin, dadka loo gurmanaya waa muslimiin, dadka xerooyinka waaweyn loo samaystee ee qaxootigooga la qaabilaya waa muslimiin. khilaafadii cumar ayaa abaar baa ka dhacday magaalada madiina iyo duleedkeyga aryaaf almadiina. dadkii miiga ahaa xoolihii baa ka dhammaaday, magaaladii bay u soo qaxeen. cumar bnu khadaab reer madiinuu tarqiibiyey. waxaad haysaan la baxa buu yidhi. nin walba wuxuu hayey buu bixiyey. markaabaa dadkii oo dhan raashinkii la siiyey. abaartiibaa daba dheeraato, roobkiibaa raagay. maalin walba 7 qof baa dhimatoo la aasa. maalin walba 7 qof baa dhimatoo la aasa. markaasuu cumar bnu khadaab warqad buu u diray camar binu caas oo masar jooga. wuxuu yidhi adigaa jooga waddankii barwaaqada badnaayee webiyaalka lahaaye soo dir macaawano. markaasuu soo diray maaragtaane macaawano awr raashin laga soo buuxiyey. macaawanadii markii la keenay dadkii la siiyey, haddana abaartii way daba dheeraato, rooma di'ine, gaajadii way sii ziyaaday, faqrigii uu sii ziyaaday, abaartii way sii ziyaaday. nin saxaabiya orgi yar soo qabtay, orgigii buu qalay, hilibba uu ka waayey lafa mooyaane. waa muxammadaa buu yidhi. uu seexday habeenkii, nebigu manaam ku arkay calayhi salaatu wasalaam. yaa rasuulallah, dhibaatadaasaa nagu dhacday. markaa buu nebigu ku yidhi cumar salaaniga gaadhsii. laakiin cumaroo sidaan ku moodayay ma noqon, waa ku siday ka dhow uu ka yidhi. cumar salaaniga gaadhsii horta, sidaan ku moodayayna maad noqon. uu kacay, nin hurdadii buu ka kacay, masaajidkii buu yimiday. cumar buu u sheegay. cumar muslimiintii oo dhan buu u yeedhay, saxaabadii. fariintaa buu nebigu ii soo diree, maan qaldamee bal ii sheega. haa, waad qaldantaa laga yidhi. waad qaldantay. maxaan ku qaldamay? kolkay abaari ay timaaddo ee roobku nagu yaraado, waxau nebi maxamed uuna baray
inaan roobdoon salaatul istisqaa inaan tukano adiguna amiirkii muuminiinta tahay amiir baa tahay amiir khaliif baa tahay ilaahay ducadaada waa aqbalayaaye dadka intood u saartid ma aragtaan musallaha intood u saarto han noo duceey bay ku yiraahdeen markay banaankii u soo baxeen halka Umar uu ka duceeyay halkii isagoo Umar taagan ayaa fadka waxa laga dhax maqlay oo leeyahay ataaka al-ghawthu ya aba hafs ya Umar gurmadkii aad dalbatay waa ku yimiday halkii iyo ko jooga ilaahay roobku siiyay salaad bay la yimaadeen xaajadoodii ilaahay u daboolay macaawina u timiday baahidoodii way sii ziyaaday halka maxaan ka fahmaynaa bani aadamku mar alle markay bani aadan iyo makhluuq u jeestaan baahidoodu way sii ziyaadi faaqadu way sii ziyaadi mashaakilkuna uu sii biiraya markastoo bani aadamku xaq ilaahay u soo noqdaana ilaahay xaaladooda isaga marka bani aadamka bedelaya muslim ayuha almuslim أعمال أحكام وحا إلهي النبي قال إنه قصوا ديبي حدي مسلمين تقرتان نظام كعالم كودا بدلس روب هالدين لوايو قال هذا ما أنت للي تكنولوجيا بيقارن هرمر بيقارن آلات ما هيان أي روب كو كاني كران ولكن نبي محمد إنك وحوي النبري صلاة دي دعاء الروب كان لقو كاني ونبي قول نبري نبي ربنا إسرائيل dagaal buu galay dagaal jihad dagaalkii oo socda oo gaal iyo islaam la isku leynayo salaadii casar baa gaadhay markaas nabiga uu sheegay yiraahdeen ya nabiy allah salaadii casar baa taagan nabigii waxa la yiri fartiisu ku fiiqay cad sida ugu fiiqay oo nabi ilaahay doorto rasuula markaas uu adigu amar baad ku socotaa annaguna amar baan ku soconnaa kaana markiisa ku wada soconno ayaan weydiisanay inuu ku joojiye halka noo joog buri la aan gaalada kala baxayno halka ha ka dhaqaaqin xadiisku waa saxiix dagaalkii way wadeen gaaladii bay jabiyeen way ka guuleysteen qaniimadii xoolihii bay la soo hadheen kolkay gooshii ay gacanta ku dhigeen wax walba ay guuleysteen ayuu nabiga ku yiri hadda inoo eega wali halkii bay joogtaa soo ma joogtaa salaada imika tukanayna buu yiri marka salaadii tukadeen buu yiri hadaba imika iska soco iska dhac buu ka yiri horumarka caalamku ma gaaray imika caalamka horumaray maxaa horumaray birahan qayliya horumaray birahan wax duubaya horumaray bani aadamku ma horumarin maanta hoos baan u dhacnay inaku maanta كلجي ميل جوجا مغلي فتك دحده دو لغا ليهي بيرته هبل او geeyo daruurta beerta hebel roobka u geeyo daruurta u geeyo wiciya daruurtii buu eegay meel bay ku daaday barkad biyay ku dhacday beertii buu yimid in wuxuu arkay dhex taagan oo biyihiisi beerta mangadka ugu wicinayo markaas uu magacii buu sheegay magacii uu ka maqlay fatka dhexda daruurta dhexdeeda iyo magaciisi baa isku tagay buu rasuulku yiri markaas uu kari maxaad iga weydiisay magacayga wuxuu yiri wallahi wax kale kuma weydiine waxaan maqlay magacaaga oo fatka dhexdeeda laga sheegaye beertaadan maxaad ku sameeysaa ii sheeg daruurtii waa ka ilaahay adiga uu ku keenay wuxuu hadaad weydiisay beerteedu markay ii soo go'do ayaa saddex u qaybiya midhaheega qayb beerta ayaa ku celiya qaybna aniga ubadkayga ayaa cunno isticmaalna qaybna waa sadaqadaystaa buu yiri والفرس حديث تاس وهو صحيح وبني إسرائيل أي نبي يقول نوغا الشيء قصص صحيحة محوكوكو الشيء نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحلقوكو برارو جنيا حداد عمل كاقا هقا جسد حداد أذيك يا إلهي حرير كي نيدح يا حداد هقا جسد نولا الشهادات بيدن يتاخر وحبكا حمان ما يعمل إنكو حمدوننا وحول بينكو هقا جن العقل وحول بينكو هقا جن أود وحول بينكو هقا جن قبيل وحول بينكو هقا جن عقل مي نولا الشهاد بيدن إلهي باهيا نولا الشهاد إلهي باهيا إلهي نولا الشهاد بيدن يتاخره لبدا بوحو إليكو هقا جن يوادين ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم
mashkuura saci baa la sheegay saci mashkuur ilaahay u saci ninkan beertiisa inta ka soo gooda ayuu xuquuq alcibaad buu ka ilaaliya bas xaqii addoomuhu ku lahaayeen waa sadaqada ku kaloo reer bani israa'iila ayaa mid kaloo reer bani israa'iila ka dalbay dayn 1,000 dirham 1,000 diinaar wuxuu lacagta hanku amaahiye xadiiskuna waa saxiix hanku amaahiye ayaa markhaatiya markaasuu ilaahay baa noo maraga buu ka yidhi kafaa billaahi shahiida buu ka yidhi markaasuu runtaas haddaad dhimatid haddana waa dayn weeyaane ayaan u raacaa lacagtaydii kafaa billaahi wakiila ilaahay baad u raaciyo iga wakiila buu yidhi markaasuu wallahi waa runta lacagtii buu u dhiibay way kala qorteen maalintuu lacagta keenayo labada nin waxay ku kala nool yihiin laba qar oo jasiirad badda u dhaxaysa maalintii kan daynka loo soo celinayay dhinacaa buu soo joogsaday kii kalena qarkii kaluu joogaa doontii uu raaci lahaa maalintaa maysan iman buu rasuulku yidhi sal alla alay wasalam kolkay gabalkuu sii dhacayo haddeetoole doon ma jirto wax la raaca ma jirto ayuu qori intuu soo qaaday ayuu dillaaciyey warqad buu ku qoray yaa rab badda adaa abuuray dhulkii cirka adaa abuuray makhluuqa adaa abuuray walaalkayga muslimka maalinta lacagta uu idayminayay marag buu ii weydiistay markhaati adaan kaa dhigto uu ku qancay wakiil buu ii weydiistay adaan kaa dhigto uu ku qancee ilaahow maanta aniguna waa anigaa imidda baddii markab iyo doon ayaan waayo la kulmi waaye ilaahow addoonka ammaanada iga gaadhsii buu yidhi adaan noo dhexeeye warqaddii buu ku duuduubay qorigii buu dhex geliyey mara kale ugu duuduubay baddii buu ku tuuray masaafada inta u dhaxaysa laa nadri intay tahay laakiin siduu doono yeela waayo innamaa amruhu idaa araada shay-an an yaquula lahu kun fayakuun waman yattaqi allaaha yajcal lahu min amrihi yusra qofka ilaahay ka baqa ee ilaahay ka cabsada ee xaqa ilaahay ilaaliya xaqa bini aadamkana iska ilaaliya umuurtiisoo dhan baa ilaahayda waxaa ka dhigan afday maxaa nolosha nagu adkeeya maanta qof kasta maanta la fadhiiso muslima uu cabanaya madaxdu way cabanayaan oo shacabkay ka cabanayaan shacabka muslimiintu way cabanayaan madaxdooday ka cabanayaan aabbuhu uu cabanaya inankuu ka cabanaya inanku uu cabanaya aabbihii buu ka cabanaya inantu way cabanaysaa hooyadeed bay ka cabanaysaa jaarku jaarkuu ka cabanaya qaraabadu qaraabaday ka cabanaysaa qof kasti waraysa waa kaase wuxuu ku leeyahay xaqaygii baa iga maqan xaqaaga ilaahay ka qaado xaqa bini aadamka laakiin iska ilaali tu'adduuna xaqa aladii calaykum watas'aluuna allaha aladii lakum baa nebigu yidhi saxaabada markay weydiiyeen madaxdu hadday xaqayga qaataan bal ka waran markaa buu nebigu yidhi xaqay nagu leeyihiin ininku u gudo iska ilaaliya xaqiina ilaahay baa ka qaadi doonay buu rasuulku yidhi ninkan inuu xaqa iska ilaaliyo halka u yimiday qorigiibu badda ku tuuray qorigii oo biyaha dul sabaynaya ayaa xaggii kale soo gaadhay kii kale markuu waayay wax doonoo soo socotay markab ayuu yidhi bal qoriga yaree badda dul socda maad iska qaadatidood reerkaagii xaabaha uga dhigta dacaawa ajajabsadaan kolkuu qaaday reerkii buu u geeyey oo u jajabiyey warqaddii baa ka soo baxday oo kala furay lacagtuu sideediiya ayaa soo gaadhsiiyey yaa soo gaadhsiiyey ilaahay baa soo gaadhsiiyey innaku waxaan moodaynaa nidaamkan caalamka inuu kombyutar adduunyada ku socoto waxay adduunyadu dowlada sameeyeen caalamka nidaamka ilaahay buu ku socdaa uuna ku socon jiray uuna ku socon doonaa laakiin dadkii nidaamka ilaahay la tacaamulaya maanta awaya qisaskaasoo dhan nebigu wuxuu noogu sheegayaa waa dadkii nidaamka ilaahay kaga faa'iidaystay iimaan iyo alla ka cabsi iyo diin iyo taqwad innagana maanta waxaa laynagu qufulay salaadu manfacadeedu qabriga ku sug adduunyadan shaqa wax ku haysa shaqo waa ka dhallinyaradeenni badaha ay ku dhammaadeen badaha saxaraag ay ku dhammaadeen
bari dambe labadii is arkeen oo ku soo boodo oo cala iga raali ahaw maalinta baddi waan imid waxaan soo raacaan waayay awalwalin hawal bahaarin ilaahay maraga aad ka dhigateed ka fiilka aad ka dhigatay ayaa amaanadii ka soo gudayo isla maalintiiba lacagtii way soo gaadhay buu ka yidhi isla maalintiiba way soo gaadhay lacagtii qisaskaas waxa la inoogu sheegayaa qaar quraanka ilaahay ku sheegay qaar nabi maxamed xadiis saxiix inoogu sheegay waa maxay weeyaan waxa uu nabigu inaga doonayaa oo nabigu inala doonayaa inaan noqono kuwa rabbaaniyiina walaakin kunu rabbaaniyiin maadiyiin lama noqdo maadigu waa maxay waa qof waxa uu arkayo inuu aaminsan ka maadi balada maadi waxa uu arkayo inuu aaminsan yahay rabbaaniguna waa maxay warka ilaahay nabigu ay sheegeen buu rumaysan yahay warka ilaahay nabigu ay sheegeen marka inaan amalkeena hagaajisana adduunka la inoo keenay wallahi amalka haddaan hagaajisano nolosheena ilaahay ba hagaajin Umar ibn Abdul Aziz rahmatullahi alayhi maalintuu dhimanay xoolihiisii oo dhan u bixiyay waxa lagu ciyaalkaaga waad kaga tagtay faqri baad kaga tagtay wuxuu ciyaalkayga diin baan baray buu ilaahay baan baray oo rasuulkoogaan baray oo shariicada islaamkaan baray oo xiriirka ilaahay baan baray diinta aan baray hadday qabsadaanna waa saalixiintana ilaahay baa tawalliyay buu arrimahooga gaajo uga yaabi maayo buu ciyaalkayga waayo ilaahay baan baray buu ilaaha qaniga ku xidhay buu ubadkayga haddaan uga taga xoolo buu dhaxal oo ay faasiqiin ay noqdaanna aniga qabriga lagu weydiin maayo maxaad uga timid xoolaha ay ku tumanayaan la oran maayo kulligood baa leeyahay maalintuu dhimanay waxba ugama tagin laakiin kulligood wada aqniya baa ilaahay ka dhigay kana diin baa la baray inaan ubadkeena diinta barno oo inaguna jirkeena diinta barna loo baahaya jirkeena xubnahan gacantu ahkaam bay leedahay dhagtu ahkaam bay leedahay ishani ahkaam bay leedahay arabku ahkaam buu leeyahay calooshu ahkaam bay leedahay waqtigaagu xukum buu leeyahay inakum maanta waxa leedahay dadku waqtigay aflagaadayaan maanta yasubbu ad-dahra wa ana ad-dahru ba ilaahay ina aadam baa aflagaadeeyay oo waxay caayaan zamankay caayaan zamanka iga xun zamanka iga liita zamanka iga jeeda zamanka maanta aniga halka ay dhigay zamankay caayaan baa ilaahay yiri zamankuna waa aniga baa ilaahay yiri waqtigu waayo waa aniga baa ilaahay yiri uqallibu al-layla wan-nahar maalinta iyo habeenka ayay biluhu ka samaysmaan sanadaduna ka samaysmaan qurumuhuna ka samaysmaan saacaduhuna ka samaysmaan waxa soo dhan wuxuu ilaahay leeyahay waa aniga amarka ana iskale maalina wax ka bedeli mayso habeen wax ka bedeli maayo afrika wax ka bedeli mayso Europa wax ka bedeli mayso lacag wax ka bedeli mayso faqrigu wax ka bedeli maayo qabiil wax ka bedeli maayo qabiil hoosana wax ka naaqus maayo ka wax waliba bedelay nidaamka gacanta ku hayo waa ilaahay inaan barano waa nagu waajib iimaanka barashadiisu ma waajiba mise waa sunna يا فرض عين على كل مسلم ويان إيمانك إلا برتا فرض عين وين على كل مسلم والشيء أقوله الرئي النبي محمد صحابته وبري ويان تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا بيدادان إيمانك أيام برني كدمنا قرآنك أيام نقول حقي ثم محيط شاقيسا تراخي زمنك إيمانك أي برتين iyo zamanka quraanka ay barteen farqi baa u dhaxeeya markaas ila quraanka barashadiisa dambana iimaan baa nooga ziyaadiyay quraanka barashadiisa waa maxay quraanka ahkaamtii baa la socota salaadii soonkii zakadii sadaqadii xajkii amri bil ma'ruufkii dadna kadib iimaan baa nooga ziyaadiyay salaada iimaanka ziyaadinaysa soonkii iimaanku ziyaadinaya xajkii iimaanku ziyaadinaya zakadu iimaanka ziyaadinaysa sadaqadu iimaanka ziyaadinaysa حقوق بني آدم ولا سكيل عليها إيمان كاجي دين تهدي بكويل علينا إنسان لكن وحصر معك وريي نبي قوم مد الله أبو بري الله الله مركي برتين
amarka inay qaataan baa u dhib yaraatay maanta dadka muslimiintu ilaahay macrifadiisa iyadoonan qalbiga galan haddaynan qalbiga macrifadu aynan degin waxaad arkaysaa qofkii isagoo qur-aanka yaqaanaa oo salaadiina aan tukan karayn ma dhacdo kuwa maalin qaylayo iska barjeynaya waa kan jamaacaddu dadkay ziyaartaan ma ogtahay ayaan u gallay si fiican bay noo soo dhaweeyeenoo BBC iyo raadiyoogina way baktiyeenoo wayna dhegaysteen markaan u yar dhammaynay wacdigii ee nidhi dee fadhiguna kala fiicane masaajidkeenna mariyo naya raaca mid baa gacanta taagoo yidhi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa soo diray waxa lagu yidhi namaad maqasheen buu yidhi markaasaan aamusno kuwii la barjeynayay baa yidhi war ninkani waa jaamiciyo waxbuu inii kordhina ka dhegaysta haye noo kordhiyo jaadka uu takhsiisan yahay sigaarkana nebiga waxa lagu yidhi maad maqasheen bal noo sheeg fadakir inamaa anta mudakir lasta calayhim bimusaytirin ilaa man tawallaa wakafar hadalkaa ka warrama dadka waani baa nebiga laga yidhi aduu waaniye uun baa tahay diinta dadka qasabka ka dhigaya ma tihid nebigii baa sidaa lagu yidhiye waad noo sheegteene qasab ha nagaga dhigine iska socda markaasay kulligood yidhaahdeen ninkaas sheekhaygu waa ninkaas shaydaan baa sheekhiina aqoontii uu hayaa laakiin taqwadii baa hoos u taalla iimaankii baa daciifa annagoo jawlad bari soconna baa nin u tagnay soomaaliya oo la yidhi ninka waa soomaali waa nin meel fadhiyo khamri cabbaaya wadannada gaalada markaasaan u tagnayo asalaamu calaykum markaasaan calaykum assalaam xaggeed ka timaadeen meesha ma miskiid baa meesha salaamu calaykum tadna leedihiin buu nagu yidhi maye dalkii baan ka imanno qaaraddii afrikaan ka imanno ininkaani soo buuqanno inaad miskiidka noo raacdaan doonayno miskiidka ah diinta ayaani bar ininka buu yidhi diinba ma taqaanaane sawka ilaahay yidhi maa laa taqrabu salaata wa antum sukaara xataa taclamuu ma taquuluun nin sakhraana oo aayaddu daliilinaya eg macluumaadka uu hayaa laakiin yaqiintii iyo iimaankii baa daciifa markaasaan ku nidhi laa baas na raac sidaa nagu raaca niman raacaya na raac jamaacadda intii kalead soo salaamaya na raac ilaahay fadligii ninka sidii buu nagu soo raacay jamacaddii buu la dhegaystay habeenkii buu nala seexday subaxdii markuu kacay ee khamraddii ay ka bacday uu arkay miskiid laga dul eedaamayo uunbuu telefoon qaatay oo wuxuu yidhi uun ayaa meeshan i keenay ii sheegay buui waan xidhibe booliis baan ugu yeedhayay waddankan haddii booliis lagugu yeedho waa khalaas waa lagula tegi uun markaasaan idhi ar cidba kuuma yidhi naga raalliha waa iska socow bas iska socow markii dambe raggii noo sheegeen waxay nagu yidhaahdeen ninkaa waddanka markuu soo galay caalim buu ahaa weliba masaajid waddanka ku yaalluu imaamka ahaa bay nagu yidhahdeen maantana dariiquu khamriga ku cabbaya macluumaadku waa shay waa gooni iimaankuna waa gooni weeyaan ummaddu maanta iimaanka hoosu yaalla iimaankeena inaan kor u soo qaadnaan u baahan nahay markaas sidaa darteed bay saxaabada rasuulku inay iimaanka bartaan oo iimaankooga badbaadiyaan wax walba way ka doorteen wallaahi wax walba way ka doorteen haddaan saacaddaa gaadhaan u malayn waad yaa ma soo gaabayaa kolka in yar insha allah in yar insha allah allah ina barakeeyo saxaabada rasuulka diintu markay dadaal kugu timaado noloshaada wax kasta waad u hurtaa abu salama markuu hijroonayay xaaskiisii baa laga reebay uma joogsan waxay ka dhigan tahay xaaskaagiiyo ilaahay nebiga kala dooro ilaahay nebigu doortay islaantii waa laga reebay ilmihiisiina tolkii baa la noqday isagiina madiinuu joogaa sanad bay kala maqnaayeen maxay u kala maqnaayeenna diin darteed suhayb arruumi markuu ka baxay magaalada maka
وهجروني قريش بعد إحدى وقشي أضو السعلوك وفقيرة نوتي مدي أضو غنية نجاب حميسد أما حولها هالكا دق ومحمد أضو فقيرة كده بتق أما العقد هذا هيسوى مقالة ما كون نقو وحيد ورد أن الرومي أنا هيبودي حداد يدشان أنا وحبا نقدلي سو لعقوا مرة بتانها لعقت ديوات نقاطها انتي كلنا ملهم لا يكو أساتها كلب حقاتها نبي جيجي هكذا بتجي يدافع بودي وحلقوا امتحان الصحابة ومعي إلهي الرسول كي سو دنعا هي العقد هذا كلا دورو متكابو دورت بار متكو دورت إلهي بو دورت يا رسول كيس فقير مركي بحوليس يودن بودي بي وعند طريقة يبني هذا الرسول كي بكذا بتجي جاي سؤال لقيت واكاس وضل مر مدينة يسوون السوق قارن آية قرآن كسود جيا ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد ما قال ذي مدينة مركو سوق علينا رسولك إلهي بهر تاجنوله ربح البيع يا أبا يحيى ربح البيع يا أبا يحيى يا أبا يحيى قنع السقا ما أنت إلهي ألق الشيء واتكم عاشتي بايع مشرك إلهي ألق الشيء واتكم عاشتي برسولك ليا وصل يا رسولك إنسان لعقت يا إلهي يا رسولك سكلا دورو لعقت يا رسولك وحي كلا دورنيين إلهي يا رسولك سي قادنيين قبيلك يا دين الإسلام كلا دورنا متكي قاتين هذا مستنى بحالك الصومالي دو يكون داريسا بحالك دلكيني أكو ويني يا الله مصعب بن عمير وادقرن إنسان إله الرالي كان نوضي مقري وأنك يقوه الرأي نبي مدينة وصادر ويان وقرآن كبر الرأي مدينة إيادون مدينة نبي محمد ونني من مسكين لقد السن وأنك يقوري قوري دين توقل يبوها رأي مدينة إنده هوغي وبتكوك مصعب كجعلايان ولا الكيسي كيرا إيه هو يدي أي لدى شو الناس دايي أيا كجرة الضباطن كي مشركين تدقال كبدر لغو سوق قبتل صوحرين يانا صوحرين من ريم مدينو أنصار يا صوحرين هايستا هل كابو جيفا مصعب نساس هو دح سعودا أنصارتي مهاجرين تي وانيكي مدينة دين تقارسيه ويان مركا أبو ظلم رساس ويقو ولال كي وهو يدي بعد الشيء وكون الناس دايي ويان ولال حارقو يقو أتكيه هيقدم عيه إيه شفاعات قادوا كذب عدبودي مصعب سودان تو يقولي يا أخ الأنصاري ولا الكيجا أنصاري الرئيس مدينو مرب النبي قادوري نين ولو نكات صوح الدي دت كيسات مدح فرشك قادنا السام والنبي يقولي كان وقت كم عاشته هو يدي بحوله بدن له لعك بدن يا مدح فرشك بدن بعد كي قادم دوتاي حرقكوا أتكيبو كيدي ولا الكي أديك ما حبوده وكابود أنصاري كادين تان ولا لكون هذا عيد والبانيك يقدروا بكيدي حرقة كواد كيبود وقال وياه أبا سفيان عمر كان الإسلام أيام قال ذي مدينة وي مدينة النبي يشيسن ولا قالوا إن أنت زي رملة بنت أبي سفيان وزوجة النبي عليه الصلاة والسلام أيو أقل كيك كوة عدي وحوض معي قوش النبي جانو كفريست وكهوس قال مركز يا أبو ما هل دينتي النبي محمد ما هل كابي كوجارسي السي إن الأبها جي كودا لجوش أتكقب أو جوش شاير هذا وقلان ويدو وعيتني مي أبها يبات هاي جوش النبي محمد وجوجل طاهرة هذا قلنا مشرك نجاسة هاي بيكوتري نجاسة جوش النبي جودي دن هاي بيكوتري إسلام مسلم أكتودا إله يكتس دين إله الرسول يا قيم الأكتودا إنك أنا ما أنت وضعك كسان حالك إن الدين تأكتي نقيمة يا لا تعيا دوني يا وديار ده الدين تأكش غينه بركة الدين تشغل هذا اللقوب بندقه هروسه وايو دين تؤدي يدا كارراعي وحبا كارراعي ما يا هو شيء كستو مالكاغا وقتيغا iyo nafta la galiya qiimihiisa la gartaa موبايل كايراد wadata Soomaad arkisid ilmayar inuu qurrad ku xaquuqa madoo golan muraayadaas musbar haduu soo qadan soo xaquuqa ka waran musbar niba kiilo sokor soo iibsaday magaaladu la dhaxmaraya baadu sokorta ku sitay baad dalooshatay
way daadinaysaa dadkoo dhan baa qayli war sokorta qabo maxaa ka galaya sokorta qiimaheegaan garanaynaa lana lacag baa lagu iibsaday waxbay tartaayoo shaahay macaanaysaa diintii baa maanta daadanaysa oo halkaa muslimiintii markii masjidka la soo galo suuqa inta ku hadhaysa inta soo galaysa iyo ma badan sidaa weliba idinku waad naga fiican tihiin diintii baa maanta inaga daadanaysa inaan soo qabanno soo maha dee ma qolo keliya ku daynaa mise kulligeen gacmahan isku qabsannaa ballinkiila dadaalka diintaa ka wada qayb qaadan oo gacanta taag insha allah dhahada wakhtigan waxaad ku jirtaan ardayda iskuullada dhigatana fasax bay ku jiraan ramadaankiina waa laga baxay ijtimaacii hargeysana 2 bilood iyo wax la jira inaga xiga jamaacadda waxaa la doonayaa ilaahay dartii u dhaqaaqo maalkooga naftooda ilaahay dartii u bixiya laa hijrata bacda alfatxi walaakin jihaadun waniya buu nebigu yidhi markii maka loo soo hijrooday buu nebigu yidhi hijro damboo maka laga hijroonayaa way dhammaatay laakiin jihaad iyo niyad baa jirayay buu nebigu yidhi jihaad iyo niyad haddii laynaga dalba diinta inaad u baxdaan u baxa buu rasuulku yidhi maanta waxaa la dalbayaa in kulligeen akhyaar iyo dhallinyar iyo culamo iyo caamaba diinta dadaalkeega gacmaha isku qabsano oo nin walba maalkiisa iyo naftiisa wakhtigiisa uu ilaahay dartii ugu baxo insha allah dhahada yaa diyaar haye gacanta way yar hoos ba u taallaaye anu gacanta ma goosanayo Djibouti la tagi maayo way nin wala gacantiin saas هيا استاجد سو ما قرنو هي بل وحي بلهن لبا بلود اما 4 بلود اما بل اما 4 ايا نيونيا الهي درتين انو بخو وان سين نيونيا وان اسقريا هدي الهي يدبيرينا وان بخيا هدي ظروفتي سامحي ويدنا نيدا الهي يقريا نكيلو وان كو دعينا يسركع شركع ولا ليال شركع ولا ليال وخير وين خير بين نغا مقدس تاغا ولي ان شاء الله ما شاء الله ما شاء الله دهدا ما شاء الله دهدا ولي ان شاء الله halka dhaxda igu toosan baa dadku yar yihiin inta kacday wali halka igu toosan naga dhab rag ma sha Allah hay yalla naga badan 42 bilood iyo bil iyo 4 bilood bisha soo socota ilaa bilaha dambe ilaa ijtimaaca hargeysa ballan ma hayna waa niyad weyn waa niyad hadii ilaahay ku waafajiyana waad baxday hadii duruuftu ku saamix weydana ajarka ilaahay ku qoraya waa tijaara maca Allah weeyaan man hamma bi hasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun kamila bu rasuulku yiri haya wala naga farxiya Allah naga farxiya kordhiya insha Allah احنا تقولي سبب dadkii qorayay waa laga batay ma sha Allah xaga damba meel la fadhiistaba meel masaajid waa buuxa ما شاء الله ما شاء الله halkiina fadhiista iska fadhiista bas nabiga ku salliya wala inoo qoray insha Allah soo ma niyoon wal wixii niyado gacanta taaga mar kale hadda way wada taageenba wala inoo qoray insha Allah xaga sara kaameraga xaga sara qaaday waan niyoonayna insha Allah habeen dambe jimcaha habeen dambe markaska jimcaha ka soo qayb gala ijtimaaci hargeysana uu dhow yahay waa September ba sanadkan dib loo riixay isa soo diyaariya jamaacada ilaahay dartii u socday inii imanayana oo nusrayo hal laga faa'iideysto insha Allah aamin hada hay wadad badan baa inoo duceeyay waan wada duceynaa aamin hada bismillah alhamdulillah thanaa lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا معنا شقيا مطرودا ولا محروما اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا
ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.